Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Kusoo dhawaada shabakada Kobciya Media Ustaad Injineer Xasan Maxamed Faraqle iyo cashirkeeni labaad ee buuggii PowerPoint. Aynu mar kale soo kicino. Cashirkeena waxaan ku qaadanaynaa maanta interface-ka hore sidaynu isugu faahfaahin lahayn. Interface-ku waa interface-kii hore oo buugaagtan soo baranay. File wixii save garana laga sameeyaa. Home waxaa laga sameeyaa waxyaabaha base-ka ah oo buttonada inta badan shaqada ku soconayso. Insertina waxbaa laga soo geliyaa inta badan. Design waa maxay inta badan iyadana designada ayaynu ku arki doonaa oo ah markaan rabnaa inaynu nashqadeena ama waxaanu diyaarsanayn design u sameyno. Transmission waxaan ku arkaynaa dhaqdhaqaaqyadii markaan rabno inaynu slide-keena dhaqdhaqaaq u sameyno transmission-ka ayaynu tagi doonaa. Animation iyagana waxaan waa maxay effect weeye waa maxay waa animation dhaqdhaqaaq markii la doorto slide show wax lagu qoro then markaas animation-ka qoraalkana wuxuu noqonayaa wuxuu yeelanayaa insha Allah qaabka uu dhaqdhaqaaqi doono ayaan arki doonaa. Slide show-na iyaguna waa maxay waa meesha markii la rabo in wax la soo bandhigo laga soo bandhigi doono. View-ga iyo review-gana insha Allah waynu arki doonaa. Marka interface-ka dhinacan waxaa loo yaqaanaa ama wuxuu ku shaqeeyaa waxa loo yaqaano slides. Slide 1 baa hadda dooran, hadda slide 2 baa ku darnay, slide 4 macnaha 4 slide baa dhinacan yaala. Dhinacan slide-yada loogu talagalay. Dhinacanna waxaa loogu talagalay scroll-ka oo kor u qaadida iyo hoos u qaadida. Halkaana waxaa loogu talagalay title-ka. Dhinacanna waxaa loogu talagalay in wax lagu qoro. Meelahan waxbaa laga soo gelin karaa. Halkan table baa laga soo gelin karaa, halkan chart laga soo gelin karaa, halkan shape baa laga soo gelin karaa, halkan sawir laga soo gelin karaa. Marka wax walba waa laga soo gelin karaa. Marka waa maxay interface-ku sidaas ayuu noqonayaa insha Allah. La socod wanaagsan cashirka xiga ee saddexaad. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.